wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay xafiiskiisa. Waxa uu ka hadlay arrimaha maamulka iyo maaliyadda. Waxa uu soo hadal qaaday in wax badan uu iska bedelay dhaqaalaha dalka, laakiin ay jiraan caqabado badan oo weli hortaagan dowladda Soomaaliya. Waxa uu ku sheegay dhibaatooyinkaasi inay ugu horeeyaan shirkado ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, kuwaasi oo diidan inay maraan hanaanka cashuur qaadista dalka. dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dadka kale aan ganacsatada ahayn ah ayaa aan u mahad celinayaa sida fiican ee ay cashuuraha u bixiyeen. ayaga ayaa hadii ay ku roon yahay 14 milyan ayaga bixiya. mahad baan u celinayaa. waxaan se hoosta ka xariiqaya haddii 10 cashuur bixiye jiraan 10 cashuur bixiye haddii jiraan ogaada dad iyo Soomaaliyeed 20 aan cashuur bixin baa jira. runtu sidaa weeyaan. hadday 10 cashuur bixiye jiraan 20 aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyna oo anagu inta halka aan joogay aan gamba bixin. مسجين فهمان دل كان قف عشور لقولي هو بحي نالنا حسابك قف عشور لقولي هيو وحي إلى هي كقاعدة وتقاعدة ما أنت لقى بلا عشور بحنس تو كان كوف فرانية مجرو بيزنس كلا كوف فرانية مجرتو وحربنا وحوية هنا عشور تسكب بحسه تتكدود الناس عطوا هالك ينومر يسوي أكتين إذن مقعابي مايو لكن next time كالكاني مادو والله هو إذن مقعابي. wasiirka maaliyadda waxa uu ka hadlay in bisha afaraad ee sanadkan uu dhici doono shir looga hadlayo arrimaha deen cafinta Soomaaliya, kaasna ay rajo wanaagsan ka qabta dowladda Soomaaliya. bilaha soo socda March bisha 3 iyo bisha 4 waxa la iskugu imanayaa guunaanadkii deen cafiska dariiqii 3 qaybtii 3 SMP3 aad maqasheen afqala lagu dhaaf ayaa la iskugu imanayaa. waxaana la isku imanayaa Washington DC baa la iskugu imanayaa bisha afraad 8 iyo 14 waxa laga wada hadlayaa SMP3 waxa loo bixiyay ama geedi socodkii deen cafiska qaybta 3 gunaanadkeedii baa la iskugu tagayaa. Zakariya Maxamuud Timacade, Universal TV, مقدشو.